kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey Soomaalida iyo caalamka aadaan oo kale shanta TV aad ka daawataan qodobada warkeenana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo loo dhaareeyay xildhibaan joogta iyo mooshin ay wadeen 4 xildhibaan uu ku jiro Cabdiraxmaan Cabshakuur oo fashil ku soo dhammaaday haddaba fashilkaasi muxuu yahay wararkeena ayaad kaga boganaysaan dhanka kale madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war culus ka soo saaray xildhibaannimadii maanta loo dhaariyay ayaa Cabdullaahi Kulane oo sheegay muddo kororsiga uu samaystay Axmed Madoobe inuu yahay mid aan la aqbali karin qodobadaas iyo kuwa kale intaasi ka faahfaahsan ayaad warkeena ku maqli doontaan waxaynu ku bilowno wararkeena xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan muhiim ah ku yeeshay xaruntooda magaalada Muqdisho kaasi oo lagu dhaarinayay madaxweynihii sagaalaad ee dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dadaal dheer geliyay intii uu xilka joogay isagoo soo celiyay sumcaddii iyo qarannimadii Soomaaliya ayaa noqday xildhibaan joogto ah sida uu qabo dastuurka ku meel gaadhka ee Soomaaliya ugu horreyntii waxaa kulanka hadheeyay dood ay keeneen xildhibaano uu ku jiro Cabdiraxmaan Cabshakuur oo ka soo horjeeday in la dhaariyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdiraxmaan Cabshakuur oo guul looga baranin guuldaradana la darisa ayaa ku eedeeyay inuu xadgudub u geystay muddadii uu xafiiska joogay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo hadal calaacala baarlamaanka horteeda ka jeediyay ayuu yidhi taariikhdu way hadhaysaa waxaana rabaa kuwa hadda xukunka qabsaday falkaasi oo kale inayna samaynin qof idinka mid ahna gurigiisa loogu dhicin ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabshakuur oo hadal ka jeediyay baarlamaanka Soomaaliya waxaa kaloo uu intaasi ku sii daray inuu xitaa ka waayay raaligelin maadaama ay xubnihii isaga la shaqeeyay ay ka bixiyeen garoosho una yimaadeen madaxweynihii hore Soomaaliya kama hayo wixii dhacay mid dhaqameed iyo mid dowladeed dhammaan intii ku lug lahayd falkii la igu soo weeraray way ii yimaadeen wayna i raaligeliyeen ayuu hadalkiisa sii raaciyay Cabdiraxmaan Cabshakuur intaasi kadib guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay in cod la gelinayo wax ka beddelka ajandaha maanta gaar ahaan dhaarinta madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii ay mooshin ka keeneen 11 xildhibaan oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya xildhibaanada ayaa cod gacantaaga kadib oggolaaday in la dhaariyo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo isla goobtana lagu qabtay dhaarta wuxuuna sidaasi ku noqday xildhibaan abid ah iyadoo 4 xildhibaan uu ku jiray Cabdiraxmaan Cabshakuur ay fashil kaga tageen goobtii lagu dhaariyay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka kale madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war cusub ka soo saaray dhaarintiisii xildhibaannimada maanta madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal mahadcelin uu ka soo saaray go'aankii ay maanta golaha shacabku ku qaateen inuu noqdo xildhibaan abid ah madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu horreyntii sheegay inuu garowsan yahay inay xubinnimada joogtada ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay tahay mas'uuliyad qaran taasi oo uu soo gutay maanta sida uu hadalku u dhigay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo alle ayaa mahadle waxaana maanta soo gutay dhaarta xildhibaannimo ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya aniga oo fulinaya qodobka 64 ee dastuurka ku meel gaadhka ah ee dalka ayuu yidhi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana wanaagsan inaan kaga shaqayno danta dalka dadka iyo diinta fursad wanaagsanna aan uga abuurno ubadka Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu uga mahad celiyay guddoonka iyo xildhibaanada golaha shacabka soo dhoweyntii wanaagsaneyd isagoo alle ka rajeeyay inuu dalkeenna ka yeelo barwaaqo iyo nabad waarta kadib dood ka dhalatay kulankii maanta xildhibaanadu ay cod gacantaaga ku oggolaadeen in la dhaariyo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isla goobta lagu qabtay dhaarta wuxuuna sidaasi ku noqday xildhibaan abid ah oo aanan dhicaynin Farmaajo waxaa ka horreeyay madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna sanadkii 2017 loo dhaariyay xildhibaannimo aan dhicin oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya si kastaba qodobka 64 farqadiisa 4 ee dastuurka ku meel gaadhka ee Soomaaliya ayaa wuxuu dhigayaa in qof kasta oo noqda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya marka uu xilka banneeyo uu noqonayo xildhibaan golaha shacabka ka tirsan inta uu nool yahay haddii aan xilka qaadis lagu samaynin
iyada oo muddadii xileyntiisa ay dhammaan sida waafaqsan qodob ka mid ah dastuurka ku-meel gaadhka ee dowladda Soomaaliya. Dhanka kale, xildhibaan Cabdulaahi Kulane oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo horeyna u ahaa madaxa shaqaalaha hay'adda NISA ayaa waxaan la aqbali karin oo sharci darro ah ku tilmaamay muddo kororsiga loo sameynayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Wararka ayaa sheegaya in Axmed Madoobe uu ku qasbayo baarlamaanka Jubbaland uu isagu soo xulay 2019 oo ay ku jiraan darawalkiisii hore, ilaaladiisii iyo adeegayaashiisii inay ansixiyaan muddo kororsi sharci darro ah. Waa wax laga xumaado oo aan la aqbali karin, ayuu yidhi Cabdulaahi Kulane oo war-saxaafadeed ka soo saaray. Kulane Jiis ayaa Axmed Madoobe ku sheegay inuu yahay aasaasihii kooxda argagixisada, wuxuuna sheegay inuu isdabamarin iyo musuqmaasuq ku sameeyay doorashadii dhacday 2019. Axmed Madoobe oo ah aasaasaha ururka argagixisada ayaa marar badan leexiyay rabitaanka shacabka Jubbaland, wuxuuna isdabamarin ku sameeyay doorashadii Jubbaland ee 2019, taasi oo beesha caalamku ay u aqoonsatay inay ahayd mid khiyaano ah oo lagu shubtay, ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Muddo kordhinta aan waafaqsanayn dastuurka dalka ayaa noqon doonta mid uga sii dari doonta xaaladda dadka reer Jubbaland oo xilligani wajahaya xaalado amni darro ah iyo macaluul, waxayna u baahan yihiin in si degdeg ah looga jawaabo fashilka Axmed Madoobe ee muddada 10 sano ah. Ugu dambeyntii, Kulane Jiis ayaa sheegay in loo baahan yahay in la mideeyo dadka reer Jubbaland isla markaana loo dhiso dowlad loo dhan yahay, wuxuuna sheegay in taas lagu heli karo in la sameeyo dib u heshiisiin dhab ah. Baarlamaanka maamulka Jubbaland oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa ansixiyay in muddo xileedka xukuumadda iyo baarlamaanka Jubbaland oo markii hore ahaa 4 sano looga dhigo 5 sano. Taasi waxay ka dhigan tahay in muddo xileedka madaxweynaha hadda jooga Axmed Madoobe uu ku ekaan doono bisha Agoosto 2024, halka la filayay in sanadka soo socda 2023 la qabto doorashada Jubbaland. Laakiin Axmed Madoobe oo rabin inuu xilka Jubbaland uu ka tago ayaa muddo kororsi ku samaystay, isagoo doorashadii hore la ogaa inuu ku shubtay.